Ku soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaro halka nagala socota waa Cawaale Official Channel. Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Real Madrid ee Luka Modric oo sheegay haddii uu ka tegayo kooxda ku biirayo ciyaarihii xiisaha iyo xamaasadda lahaa ee shalay dhacay horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Manchester City ayaa ku soo laabatay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League kadib markii ay guul 2-1 ka soo gaadhay West Ham United oo marti ugu ahayd Etihad Stadium. Labada gool ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada Ilkay Gundogan iyo Fernandinho ayaa Manchester City siiyay 3 dhibcood oo muhiim ah oo ay ka heleen ciyaar barafka qariyay ee garoonka marba la xaadhayay. West Ham ayaa waqtigii dheeraadka la timi gool aan waxba u tarin oo u saxeexay ciyaaryahankooda Lanzini. Kooxaha kubadda cagta Chelsea iyo Manchester United ayaa dhibcaha ku wadaagay kulan xiiso badnaa oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge, kaas oo intiisa badan maamuleysay kooxda kubadda cagta Chelsea. Manchester United ayaa la hormartay goolka qaladkiisa oo lahaa Chouameni oo u dhaliyay Jadon Sancho, kaasoo kubadda ka boobay xiddiga khadka dhexe ee reer Talyaani, kadibna si qurux badan u dhammaystiray. Chelsea ayaa fursado badan iska khasaarisay ayaa gool rikoodh ah oo keenay barbara, kaasoo u dhaliyay Chouameni oo saxay qaladkii uu galay. Kooxda Chelsea ayaa ku dhaban Premier League inay ka badiso kooxda Man United 8 ciyaarood xidhiidh ah ayay Man United guuldaro la'aan ka tahay kooxda Chelsea markay la kulanto, halka 5 jeer ay barbaro ku dhammaadeen 3 jeerna ay Man United ka badiso. 8 jeer kooxda Chelsea hal gool oo kaliya ayay ka dhalisay kooxda Man United, iska badaa inay ka badisay shabaga Man United inay gaadho ayaa ku adag kooxda Chelsea markay la ciyaarayso kooxda Man United. 3 tababare ugu dambeeyay kooxda Chelsea iska beddelay ee kala ah Lampard, Sarri iyo Tuchel ayaa aan weli wax guul ah ka gaadhin kooxda Man United. PSG ayaa ku garaacday kooxda Zenit 3-1, waxaana laba ka mid ah goolasha dhaliyay Marquinhos, halka goolka saddexaadna ugu daray Angel Di Maria. Lionel Messi ayaa caawiyay 3 gool ee kooxdiisa dhalisay, hase yeeshee maalin wanaagsan waxa uu ahaa Sergio Ramos oo kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxda PSG si fiicanna ku dhammaystay. Xiddiga reer Brazil ee Neymar ayaa dhaawac halis ah ka soo gaadhay kuraanta dhammaadkii ciyaartii ay kooxdiisu ku garaacday Zenit, taasoo laga dhex qaaday isaga oo iyana garoonka laga dhex saaray. Kuraanta ayaa hore uga dhaawacmay ciyaaryahanka Neymar, taasoo horena muddo badan garoomada uga maqnaa. Ciyaartan oo daawanayeen Nasser Khelaifi iyo Leonardo oo agaasimaha kooxda PSG ayaa murugo badan ka muuqatay kadib dhaawacii soo gaadhay Neymar, taasoo ay ka warwar qabaan in mar labaad garoomada muddo dheer uga maqnaado dhaawacan soo gaadhay darteed. Luka Modric ayaa lagu soo waramayaa inuu xiiseynayo ku biirista kooxda Manchester City haddii uu ka tago Real Madrid sanadka soo socda. 36-jirkan ayaa weli furo u ah Los Blancos, isagoo u saftay 13 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, isla markaana ku lug yeeshay 4 gool, laakiin heshiiskiisa ayaa dhici doona xagaaga dambe. Wararka qaar ayaa sheegaya in xiddigan khadka dhexe ee reer Croatia uu doonayo inuu xiiseynayo ku biiro kooxda reer Sacuudi ee dhaqaalaha badan ay geliyeen ee kooxda Newcastle United, sidoo kalena isha ku haya kooxdiisii hore Tottenham oo halkaas doonaya isaguna ku laabto. Laakiin muhiimadiisa koowaad waxay tahay inuu ku biiro kooxda Pep Guardiola ee Manchester City.
barnaamijkeenii ciyaaruhu intaas ayuu ku egyahay. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe noo saaro, asxaabtii hore noola joogtana like iyo share noogu dara. Barnaamijka inoo faafiya si uu gaadho asxaabta jecel kubadda cagta. Mahadsanideen.